diblomaasiyadda ayaa daawanaysaan dalka Iran mas'uuliyiinta dawladda Iran ayaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dawladda Iran ayaa markii ugu horeysay faahfaahin wuxuu ka bixiyay waxa ka dhacaya gudaha dalkaasi wuxuu si cad ugu eedeeyay koox uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso dibadda ka timid inay dhibaato u geysanayaan dadka shacabka iyo goobaha dadweynaha wuxuu sheegay kooxdaasi inay dab qabadsiiyeen goobo lagu cibaadeysto oo masaajidyo ay ka mid yihiin waxay gubeen buu yiri xitaa dad shacab ahaa qaarkoodna waxaa la sheegay dadka in madaxa laga gooyay waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu horeeyay oo laga diiwaan gelinayo gudaha dalka Iran in xitaa saraakiil ciidan booliiska ka tirsan la dilay kadibna la gubay qaarkoodna la sheegay in madaxa laga jaray halka masaajidda aan idin la wadaagnay iyaga oo la gubayo dadkan wuxuu yiri kama tirsana marka dadka shacabka ah waxay u muuqanayaan kuwa dhibaatada horinaya buu yiri dadka yimid meel ka baxsan gudaha dalkeena laakiin dhamaantooda gacan bir ah ayaa lagu qaban doonaa waana dhageysanaynaa dhinaca kale buu yiri cabashada ay qabaan dadka shacabka madaxweynaha dawladda Iran waxa uu sidoo kale sheegay in la diiwaan geliyay dad rayid ah oo waxba galabsan in dhibaato loogu geystay gudaha magaalada Tehran oo caasimadda Iran ah dibadbaxyada dadka dhigayana ay dhibaatadaasi geysteen Mareykanka iyo Israel ayuu sheegay inay ka dambeeyaan dhibaatadan sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday qasaaraha ka dhashay banaanbaxyadii dhawaanahan ka dhacayay magaalooyinka waaweyn oo ka tirsan gudaha dalkaas wuxuu ku eedeeyay Tel Aviv iyo Washington inay amar siinayaan dadka rabshadaha sameynaya kuwaas oo uu sheegay inay gubeen gaadiidka dadweynaha iyo guryaha dawladda isagoo intaasi ku daray in waxa dhacaya aan loo aqoonsan karin mudaharaad nabadeed haddana wuxuu yiri macquul ba in guryo iyo gawaarida dibdimiska la gubo kadibna lagu tilmaamo mudaharaad nabadeed kuwaas oo madaxweynaha dawladda Mareykanka dhowr jeer uu sheegay inuu taageerayo dadka banaanbaxa dhigayo waxa uu intaasi ku daray marka dagaalkii ka qaraxay Iran iyo Israel bishii June ee la soo dhaafay inuu ku dhamaaday faragelin dawladda Mareykanka ay samaysay taasoo ay ku jiraan duqeymo la beegsaday xarumaha nuclear-ka ee dawladda Iran isagoo intaasi ku daray in banaanbaxyada hadda socda ay yihiin cadaadis iyo rabshad la doonayo in lagu cadaadiyo mas'uuliyiinta dawladda wuxuu sidoo kale sheegay marnaba inaysan ogolaan doonin in dadka shacabka ah hantidooda la boobo ama dhibaato loo geysto saacadihii ugu dambeeyay waxa sidoo kale warbaahinta la hadlay Cali Larajani xogayaha golaha nabadgelyada qaranka ee dalkaasi Iran isagoo sheegay kooxaha hubeysan ee isku dayayaan inay afduubtaan guud ahaan dalkaasi Iran oo wuxuu yiri kaliya uma socdaan inay shakhsi afduubtaan wixii soo kordha wararkeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa hase ahaatee isla akhbaaraadkaasi ayaan ku sii soconaya oo Iran haddaba maanta oo xadda mas'uuliyiinta dawladda Iran waxay sheegeen in hoos u dhac weyn la dareemay hoos u dhacaasi oo ah dadka banaanbaxa ka qayb galayay inay joojiyeen inay wadooyinka isugu soo baxaan maalintii Jimcihii la soo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Iran Abbas Araji ayaa warbaahinta la hadlay sidoo kale Ayatollah Ali Khamenei ayaa khudbad jeediyay waxayna ku eedeeyeen Israa'iil iyo Mareykanka inay ka dambeeyaan banaanbaxyada ka dhacaya gudaha dalkaasi Iran sidoo kale tan waxay sheegeen inay gacan bir ah ku qaban doonaan oo ay ka hortagi doonaan dad kasta oo carqaladeynaya amniga dalkaas maanta waxa soo baxaya mar kale in la xanibay adeegii isgaarsiinta si gaar ahaaneed internetka ciidanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iran ayaa la sheegay in talaabadaasi ay qaadeen waxaana mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ciidanka dawladda Iran ay sheegeen inay ilaalin doonaan guusha kacaankii dhashay 1979 markii qoyskii reer Shah gabi ahaanba talada dalkaasi lagala wareegay waxaana qadcas ay ku tilmaameen mas'uuliyiinta amniga guud ee dalkaasi Iran marka taasi laga yimaado waxay wararka ugu dambeeyay ee soo baxay ay sheegayaan in 8 ka mid ah ciidanka dawladda Iran la dilay Khamiistii iyo maalintii Jimcaha labadaasi maalin oo kaliya 8 ciidan ka mid ah ayaa banaanbaxyadaasi lagu dilay waxaana ka dambeeyay dilkaasi dadka banaanbaxa dhigaya sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda waxay sheegeen ilaa iyo 30 ka mid ah ciidanka in ay waxyeelo kala duwan soo gaartay badankoodna ay dhinteen sida warbaahinta dawladda Iran ay baahisay marka la eego gobolka Isfahan ilaa magaalada Tehran toddobaadkii la soo dhaafay iyadoo mas'uuliyiinta dawladda Iran ay sheegeen in waxyeelada ugu badan ay soo gaartay ciidanka dhanka kale waxa la diiwaan gelinayaa boqolaal ruux dhaawacay inay soo gaareen oo la dhigay xarumaha dawladda waxaana ilaalada kacaanka ay sheegeen inay gacan bir ah amniga ku qaban doonaan kacaankii dhashay 79 inay difaacayaan taasi waxay keentay in madaxweyne Trump hanjabaadii saddexaad uu soo diro muddo maalmo gudahooda isagoo ku hanjabayo inay garab istaagi doonaan dadka shacabka ah banaanbaxooda ay sii wadi karayaan haddii dadkaasi la dhibaateeyana ay faragelin ku sameyn doonaan dalka Iran wuxuuna sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee internetka uu ku leeyahay Truth Social in dawladda Mareykanka ay caawin doonto dadka shacabka ah
ee dowladda Iiraan. Hanjabaadaas marka laga yimaado Turkiga oo daris la ah Iiraan waxaa warbaahinta la hadlay Hakan Fidan wasiirka arrimaha dibadda waxaana uu yiri waxay Iiraan dhibaatada hadda haysata ay kaga bixi kartaa dib u heshiisiin dhab ah iyo wada shaqayn dhexmarta dowladaha gobolka. Intaasi oo ka dhigan macnaha marxaladan way idinku adag tahay waxa idin caawin karaya dowladaha taasi oo ah fariin dadban oo aad moodo in loo diray mas'uuliyiinta dowladda Iiraan. Waxaa sidoo kale fariintan u muuqanaysaa in loo diray dhankaasi Mareykanka oo ah faragelin dibadda ka timaada xalka Iiraan ma noqonayo. Maantay aan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay weerar kasta oo Mareykanka ka yimaada iyo faragelin gudaha Iiraan lagu sameeyo inay horseedi doonto ama ay ka dhalan doonto natiijada ah in iyaguna ay beegsadaan Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka ee ku yaala gobolka. Waa fariin kale oo hanjabaad ah oo aad u adag. Waxay tani ka dhigan tahay marka annaga oo kaliya ma guban doono dowladaha kale ee gobolka ee saldhigyada uu ku leeyahay Mareykankana wayna la guban doonaan Israa'iilna wayna la guban doontaa. Fariintaasi marka waa fariin sidoo kale marka dhinaca kale la fiiriyo fariin loo dirayo weeye dowladaha kale ee Khaliijka ee saldhigyada uu ku leeyahay Mareykanka iyo dowladaha ugu yaraan la hadli karaya dowladda Mareykanka oo ah inay macnaha mas'uuliyiinta Mareykanka kala hadlaan faragelin waqti xaadirkan lagu sameeyo dalkaasi Iiraan inay horseedi doonto gobolka oo dhan inuu isla helayo. Markaan ka soo laabano marka jawaabta dowladda Iiraan iyo talada wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga aan kula wadaago saacadihii la soo dhaafay waxyaabihii la diiwaangeliyay dhaqaaqada soconaya iyo cabsida soo korortay. Warbaahinta Al Jazeera, warbaahinta gobolka iyo warbaahinada Israa'iil waxay baahiyeen macluumaad ku saabsan Israa'iil maanta inay gashay mid ka mid ah heeganadii ugu sarreeyay muddooyinkii la soo dhaafay marka la eego oo waxaa heegan la geliyay qeybaha kala duwan ee ciidanka. Kadib markii wadahadal dhanka telefoonka uu dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu markii dambe waxaa la sheegay wadahadalka inuu ku soo biiray madaxweyne Donald Trump oo la isla meel dhigay arrimo ay ka mid yihiin Syria, Iran iyo sidoo kale Marinka Gaza. Sababta Israa'iil ka dambeysay heegankan inay gasho kadib wadahadalkaas ilaa iminka micno rasmi ah looma hayo dhankoodana kama aysan hadleen. Sidoo kale mas'uuliyiinta Israa'iil laga soo xigtay macluumaadkan in heegan la galana faahfaahin ma aysan bixin. Iran, Syria iyo Gaza maadaama laga wada hadlay arrinta Gaza waxaa lagu waramayaa in la isla gartay maalinta Talaadada ee soo socota in lagu dhawaaqo golaha nabadda ee madaxweyne Trump oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka shaqeynayay. Golahan waxaa la doonayaa inay kormeeraan maamulka kumeel gaarka ah ee la doonayo in magaalada Gaza loo sameeyo sida wargeyska Al-Sharq al-Awsad uu baahinayo. Golahan waxaa daneynaya dowlado badan sida Qatar, Masar iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta oo la sheegay inay qayb ka noqonayaan xubno technocrat ah oo la sheegay Falastiiniyiin ah inay golahan qayb ka noqon doonaan kuwaasi oo la doonayo inay noqdaan kuwii ugu dambeeyay ee la isku fahmay kadib wadahadallo ka dhacay magaalada Qaahira oo dalka Masar ah. Arrinta ugu xasaasisan oo qodobka saddexaad oo ay ka wada hadleen Mareykanka iyo Israa'iil ayaa ah arrinta ama faylka ku saabsan dowladda Iiraan. Maxaa laga qoray saacadihii la soo dhaafay haddaba? Warbaahinta reer galbeedka, warbaahinta Ruushka iyo warbaahinada Iiraan waxyaabaha ay qorayaan oo ay kala duwan yihiin. Aan ku horeeyo warbaahinta reer galbeedka. Wargeyska New York Times oo Mareykanka ka soo baxa iyo wargeyso kale oo dalalka reer galbeedka laga leeyahay waxay baahinayaan in madaxweyne Trump la hordhigay qorshe cad oo ku saabsan in Mareykanka uu faragelin ku sameeyo Iiraan waxa ka soconayo ama Israa'iil uu ku weheliyo dagaal ka dhan ah dowladda Iiraan. Sidoo kale warbaahinta New York Times waxay daabacday in madaxweyne Trump wax walba uu ogolaaday laakiin waqtiga rasmiga ah ee ku saabsan in Iiraan duulaan lagu qaado inaan weli la isla garan ilaa iyo hadda. Taasi ma waxay ka dhigan tahay in cadaadis ee la saarayo dowladda Iiraan dagaalka dhanka warbaahinta miyay qayb ka tahay mise wararku waa xaqiiqo oo wax waliba waa la isla gartay xog lagama hayo ilaa iyo hadda. Intaas ayaan ku soo afmeerayaa nabadii.